wafdigan uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateya ayaa kormeer indha-indhaynah iyo kuurgal ah ku soo maray deegaanka Hadeyta oo kamid ah deegaanada ay saameynta weyn ay ku yeesheen roobabkii ka da'ay dhulka xeebaleyda ee waqooyiga Soomaaliland roobabkaasi oo dhammaanba burburiyay dhismayaashii iyo hoygii ay deganaayeen dadka deegaanka Hadeyta munaasabadan oo ahayd gurmadka dadkii ay saameynta weyn ay ku yeesheen roobabkii ka da'ay dhulka xeebaleyda ayaa 14 aqal lagu wareejiyay dadka ugu jilicsan ee deegaanka Hadeyta mas'uuliyiin munaasabadaasi ka hadlay ayaa iyagu sheegay in ay u baahan yihiin dadka kale in ay helaan hoy ay ka galaan kulaylka iyo dabaysha annagoo ah gudida gargaar iyo gurmad ay ururka Ramadna ay ka tahay hormood ay ka tahay waxaan deeq ka sidnaa ururka midnimo ee ku yaala Ingiriisiga iyo walaalaha qurba joogta ee Australia iyo Canada iyo Europa deeqdaasi waxay tahay markay walaalihii Hadeyte ay dhibaatadu ku dhacday ee horeyna aan u soo booqanay mar labaad wixii na soo gaadhay ee walaalaha naga soo gaadhay inaan Hadeyte keeno oon ka samayno aqal dhis amba guriyeyn kuwa maanta aan hoos joogno sida daraadeed waxaan leenahay kulli inta aan arintu maaha deeqdaasi waxay gaadhaysaa waa 14 aqal iyo afar kaniif iyo hal dhakhtar walaalaha iyaga isxilqaamay inta itaalkoogu noqdayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanan ka gudoomaynaa waxaan leenahay jazaakallah jeebkii aad wax ka soo saarteen wax khayr qaba Allah idinku celiyo kuwa kale ee qurba jooga ah ee walaalahooda ee arkaya dadka dayacna waxaan leenahay 14 hadii loo dhisay bal nin iyo laba hadaad isku geysaan de boqolka qoys ama dhowrka boqol ee qoys cidada maanta fadhiya way asturaanayaan intanuuni ma aha ee ma garanaysaa wax ku filan waxa weeyaan intan in ka badan oo sida la sheegay biyo leh oo caafimaad leh oo waxbarasho leh oo ma garanaysaa daryeel kalaba leh waa intii badnayd banaankay taala dadka oo banaankay jiifaan geed ma laho waad arkaysaan geed ay harsadaan ma laha halkii aan ma garanaysaa laga yimina de waxa weeyaan badda yaa qaaday oo waad kulay sawirka waad ka arki doontaan siday tahay dadka deegaanka Hadeyta ayaa iyaguna uga mahadnaqay dhammaanba cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii ay u heli lahaayeen hoy annagu haddii aanu nahay beesha Hadeyta ee soo barakacday ee dhibaatada ku heshay meesha Hadeyta la yiraahdo ayaa ka mid nahay de waxa weey dad dhibaato ku dhacday anagu waan ahayn imika yaatan maanta halkan taaganahayna waxa weey dhibaato waxa weey waxa la jooga qayb qora ka socota dawladda ka socotay qoraha hay'adaha ka socotay inta wada joogan wixii la loo keenayna waan haynaa horta wax weey dhibaato way fara badneed maalin qora laba soo wada koobi karo waxaan haynaa waan gudoomaynaa waxa ay wax ka sii badan hadii Ilaahay raxmaanka ka helo iyagana maartay dawladda dawladaha islaamka waan u qeyrsanayna wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateya Fariid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadahan ay ku dadaalayaan mar walba sidii ay wax u gaarsiin lahaayeen dadkii ay saameynta weyn ay ku yeesheen roobabkii ka da'ay deegaanada xeebaleyda ujeedadan maanta u soconay waxa weeyaan inaan ka qayb qaadano gargaarka ay fidiyeen walaaliheen ka soo jeeda Seylac iyo Lughaya ee la yiraahdo midnimo oo ku kala nool dacafyada adduunka oo ay ka mid yihiin UK Sweden iyo Australia say sheegeen waxaan uga mahad celinaa waxqabadka muuqda ay u qabteen ummadoodii reer Hadeyte ee dhibaatada ka soo gaadhay duufaantii Ilaahay sababay waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin dhibaatadan waa mid Ilaahay sababay waana Ilaahay baan uga mahad celinaa alxamdulillah markaas Ilaahay markuu inoo hagaajinayo insha Allah haddaan nahay ka dawlad ahaan horena waxaan u qabanay imikana waxaan rajaynaynaa saddexdaas shay ugu waaweyn ee caafimaadka oo MCH la helo iyo biyihii la helo iyo waxbarashadii sida ugu dhaqsaha badan inta aan ku dadaalaynaa geesta kale wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhagax dhigay
dugsi hoose dhexe ee uu yeelan doono deegaanka Hadeyta kadib markii dugsigii hore ee deegaankaasi ay khasaare u geysteen roobabkii ka da'ay deegaanada xeebeleyda ah isla markaana ay la tageen dooxyadu. sidoo kale wasiirku waxa uu kormeer ku soo maray dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Cabdigeedi isagoona u kurgalay waxyaabaha uu baahan yahay dugsigaasi. Xamse Qurbaani, warbaahinta qaranka Soomaaliland, deegaanka Hadeyta.